kugula talinayaa saaxiib inaad samaysid Facebook page ganacsiyada aad waxa weeye ku xaysiisay. run ahaantii ma jiro Facebook page ama Instagram page waxa weeye qofka hadduu maanta ganacsi bilaabo Soomaali ah ganacsigiisa loogu xaysiin karo oo page u gaar ah xaysiinta ma jiro. aniga 6 bilood kor waxa bilaabay ganacsi waan waayay Instagram-ka waxa weeye Instagram page waxa weeye ganacsi alaab aan keenay iyo xaysiiyo ma jiro. marka saaxiib fursada way banaan tahay waana ka faa'iideysan kartaa Facebook-ana lacag badan baad ka sameynaysaa inta kaliya ma aha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سحب يا لمان أدب إذن سلام ساعة وانك وجدا ما أنت وحوضها برنامج أدب مهمة وحاول نهانتي فيسبوك أنا على في عن أتكسمين كردي هذا واحد رأينا ما نسح ما يجوا صمري أنت قابة فيسبوك العقل وقسمية أبوه الصي أنت قابة وقسمين كده سأجن هاي بس وما لذا وحاول بلاتفورم واستعمالك بديهن وفيسبوك قفوين قفير فيسبوك أكون بولية ريل أكون بولية هذا si adag waxa weeye uga faa'iideysan kartaa Facebook sida YouTube ka saaxiib ya lacag badan looga sameeyo in la agba looga sameeyo asna marka ciyaar maaha laakiin platform Soomaaliya ay fahansaneen hadda bilaabay actually 3 sano ka hor bilaabay Facebook inuu lacag bixiyo. marka waxaan rabaa saaxiib dhowr qodob oo aad adigu lacag Facebook aad kaga sameyn karto ina maanta waxay halkan ku soo gudbiyo. saaxiib ya magay waxa la galabashin run ahaantii channel waxaan ka hadlaa sida online-ka iyo platformyada waxa weeye caalamiga ah looga sameeyo ganacsiyada iyo wixii muhiim ah markaas aan u aragno. fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe noo saar. waxaan kaloo ka codsanaynaa inaad like noo saartid si video dhalinyaro badan u gaaro. saaxiib ya marka waxaan rabaa inaan dhowr qodob u kala qaado. qodobka ugu horeeya waxa weeye marketplace Facebook marketplace ta ogtihiinba qurbaha aad looga isticmaalaa laakiin Soomaaliya fursad aad uga banaan wali ma ka jiraan. waa maxay Facebook marketplace Facebook marketplace saaxiib waxa weeye waa suuq lagu soo bandhigayo alaabaha waxa weeye halkaas lagu kala gataa ama alaabta waxaan noqon kartaa alaab cusub oo hadda la keenay ama alaab waxaan noqon kartaa second hand ama waxa weeye alaab gacan labaad ba aad lagu kala gata. run ahaantii waxa dhowr bilood ka hor wax arkaya gabdho boosaaso joogo oo sameeyay Facebook-an laakiin ayagu waxay ku kooban yihiin furniture-ka waxay dhahaan sariiraha fadhiyada qasaaladaha waxa weeye adigu miisaska qadada adigu wax noocaas oo u badan furniture-ka bay aad uga shaqeeyaan. haddaba saaxiib yaal Facebook marketplace-ka waa suuq waxa weeye ama market marka caalamka la fiiriyo billions waxa weeye lagu kala bedesho. waa market aad u weyn qofkii furane halkaasi waxa weeye lacag fiican buu ka sameyn karaa. tusaale yar hadda idin siiyo waxa soo gelinaysa tusaale hadda waxa soo gelin karaa mobile oo kale aad waxa weeye iska bedesho kale mobile cusub lagu keenay 11 Pro Max lagu keenay kasoo qad iPhone awal waxa wadan jirtay iPhone 10 baa wadan jirtay ama iPhone waxa weeye 7 Plus baa wadan jirtay. haddaba ma rabti inaad cid kale siisid inaad waxa rabtaa lacag ku heshid marka waa soo gelinaysa xaalada mobile-kana iga iib ah waxa weeye mobile-kana iga iib intaasaan baan ku iibsanaya. qofkii dad badan ba arkay marka mobile raadinaya kombiyuutarada la soo gashaa waxba dad badan waxa jiro aan budget haysan oo wax cusub aan gadan karin laakiin wax second hand-ka loo kala gato sida waxa weeye hoodayda ba arkay Soomaaliya business aad weyn weeye business yar baa moodaysa laakiin gudaha marka aad gashid qiimaha dadka soo gato ee lacagta ka faa'iidaan aad bay u kala baanta. haddaba adiga waxa saaxiib suuqaas waa asaasi karta marketplace waa furi karta qaabka loo furo iyo waxa weeye siyaalaha la maro qaabka loo maro video dhan baa ka sameeyay saaxiib ya waxa weeye kor saaran description-kana linkigiisana hoos baa idin dhigay halkaas waa ka daawan kartaa si more detail baan saaxiib yaal uga hadlaya. ka labaad oo rabaa meesha ku sheego waxa la Facebook ads wax la dhaho xaysiinaha Facebook in lacag laga sameeyo baa runtii aad u jirta in aragteen ma aqaan waayaha marka Facebook daawanaysa ma taqaana wararka kale ama video kale oo sameynaya wuxuu gelinayaa ads yara buu soo dhaxgelinaya xaysiin aad yar buu soo dhaxgelinaya halkaas waxa weeye aad skip xataa ma oran karto because aad yorta waa toos kamid ah wax ka yar marka inaad sugtid weeye. marka xaysiibahaas qofka page-ka daawanaysid
tusaale kale waxaa kasoo qaadan BBC sidoo kale page ama VOA oo kale marka wararkooda daawan xaysiimo kusoo geli xaysiimaha arkaysid page kaasi lacag baa u socoto waxa weeye oo mataqaana lacag baa u socota xaysiin soo marka waxaa jira dad badan oo business hadda sameeyay Facebook-na oo tin malaayiin qof baa aad u isticmaasho marka dad badan waxay ku bixinayaan xaysiimo bay ku bixinayaan in mataqaana badeecadooda ama productkooda ama dukaankooda meesha ku yaalo la arko ama la eego marka xaysiintaasi dadka lacagta ku bixinayaan oo Facebook la siinayo oo promotionka xagee lagu xaysiinaya waxa lagu xaysiinaya marka channelada followerska badan leh baa lagu xaysiinaya lacagii laga soo qaadayna kala bar hadii aad lagu siiyay kala bar Facebook ka qaadanay in channelkaaga baa xaysiintii loo soo dhaxmaray xaysiinta ogtiinba Facebook target baa jiro tusaale kale adi Soomaaliya joogta badeecad baa keentay Soomaaliya waxa u baahan marketkaaga dii waa Soomaaliya waxa harta marka Soomaalida kaliya in la tuso badeecad hadii badeecadda Mareykan iyo Australia dalato adiga khasaare ku tahay dadka Mareykan Australia waxa kama gadanayaan mana yaqaan laakiin maxaa rabtaa dadka Soomaaliya joogo Facebook-yada Soomaaliya waxa weeye akoonadooda in la tuso si laga gato marka waa la doortaa target waxa weeye market bina region bay dhahan oo gobolka aad rabtid baa dooranaysa xataa gobolada xataa magaalooyinka waa kala dooran kara marka dadka magaalada joogo kaliya baa xalfiintaada arkay waan inta rabtay suuqa saakoosh marka Soomaali badan hadda waxa bilaabay inay ku bixiyaan waxa weeye Facebook lacago si mataqaana badeecadahooda ay u faa'iido marka adiga si uga faa'iideysan kara saaxib waxa uga faa'iideysan kara inaad sameysid Facebook page kaas waxa weeye aad business-da aad ku xaysiisid ata waxa u bixin ka dhaca Facebook kaliya waxa business-da dadka lagu xaysiiyo waa u bixin ka dhaca oo qofka maanta business furta waxa ugu weyn u baahan yahay waxa weeye market buu baahan yahay adiga marka laga yaabo inaad shacab badan haysid oo followers badan siish dabcan waqti uu qaadanaya inaad audience-haaga ama follower badan heshid haddana waxa weeye dulqaadkeeda ba laga baahan laakiin markii follow badan yeeshay lacag baa lagu bixiyaa saxab yaal tusaale kale aniga marmar baan waxaan sameeyaa waxa la affiliate marketing baa sameeyaa badeecooyin baan xaysiiya website lama taqaana click markaan ka xaysiiya commission baa lagu helaa marka ma taqaana linkiga waxiga aan soo habayso badeecadii waxa aan soo helo meesha linkiga lagu xaysiiya ma taqaana linkiga waxa lagu xaysiiya Instagram page-ka baa aad lagu xaysiiya oo tusaale kale waxaad xaysiinaysaa ka soo qaad protein oo kale waxaa xaysiinaysaa kasoo hadda tahay gabar make up oo kale xageeba la aadaysa marka make up waxa la aadaysaa Instagram page ay qusayaan hadii cosmetic ahayd page waxa jira cosmetic kala dadka marka lacag bay ka qaadaan waxa ka qaada 24 waxa laga qaadaya $30 marka waxa la leedahay linkan iyo soo dhig hadii wata link lacag ba ka helta waxa la affiliate marketing way ka soo hadlaya daarad inaan daawada lacag baa laga sameeyo commission way marka waxa leedahay linka iyo soo marka waxa u diraysaa linki iyo sawir iswato asaga marka Instagram waxa ku xiran qoraal kuna qofba ku xiran dad badan baa laga yaabaa inay ka gataan linkiga hadii ka gataan commission weyn baa ku soo dhacaya hadii laakiin qofka Instagram iska weeyay maanta waxaan ka helna $30 $40 $20 $15 baa la iska qaadaa $30 baa u yar anu inta arkay because shacabka bule Instagram qof kasta maalintii waxa laga yaabaa inuu 15 just one day single day inuu soo dhigo waa dareemi kartaa hadii waxa qofkii hal maalin shaqaysanaya 200 ilaa waxa weeye $300 marka kama jiro mataqaana Soomaaliya barnaamij sidoo kale waxaan keenay saactii masaxabiya saliida bidaarto kale baa waxaan keenay dhowr bilood ka hor wadankan Instagram kayo kale waxaan raadiyay Instagram waxa weeye dad badan ay ku xiran yihiin followers aad u badan oo loogu talagalay in ganacsiga lagu xaysiiyo runtii waa waayay mataqaana ana suuqaygu wuxuu ahaa Europe ahaa runtii waa waayay xataa wax mataqaana barnaamijkaasi noo sameeyo kuwa iska yaryar baa jiro oo Soomaaliya ka jiro kale aan naf lahayn laakiin wali waa sax marka waxaan maanta kugula tilmayaa haddaad rabtid inaad mataqaana lacagta sameys Instagram samee ama Facebook samee ganacsi dadka uga xaysi marka hore kale bilaash baad uga xaysiinaysaa dabcan ilaa followers badan ma haysatid laakiin markuu kula kaco dad badan ee ku soo mataqaana soo la garaya bartaan meesha in ganacsi lagu xaysiiyo qof walba ku soo haminay qof markuu badacad keeno
soddonka dollar kugu soo dirayaa badeecadin wuxuu ku leeyahay yaxaysi just hal post weeye wax kale ma aha hal post oo saas weeye saas arkeen dadka markaasi saa u gada hadii qodobkeena saddexaad sida Facebook lacag looga sameeyo waxaa la brand collaboration baa la waa inuu ku yiraahdo Facebook soo sameeyo tan macnaheedu waxa weeye Facebookaaga awal dadka moogta dadka lacag baa ka soo qaadaysa laakiin Facebook hadduu 10,000 oo follower gaaro just 10,000 oo follower hadduu Facebookaaga gaaro Facebook lacag bay ku bilaabayaan lacag toos ah bay ku bilaabayaan waa shuruud waxa weeye ku xiran Facebook because wuxuu arkaya in dad badan ku xiran as long as 10,000 qof ee la ku saarta ama followers ee ku yihiin Facebookaaga Facebook wuxuu soo gelinayaa fiidiyada soo gelisid waxa uu ku soo dhaxdariya xaysiin baa ku soo dhaxdariya xaysiintaasi aad daawanaysid dadka Facebook waxa ma daawanaya lacag badan baa ka soo galaya laga yaabaa bishii waxa weeye 1,000 ama 2,000 dollar in bishii ee ka soo gasho waxa ku xirantaa qaabka dadka ku xiriyo ka badan baa ka soo gali karta ruuxaantii marka Facebook-geena Soomaaliya runtii aad ma u fahansan in lacag laga sameeyo laakiin saxab lacag badan baa laga sameeyaa mataqaanaa taasina lacag waa ku sameyn kartaa xabiyaal saa ogtihiin Facebook iyo Instagram-ka intaasa idinkaga filan in mataqaanaa lacago laga sameyn karo ruuxaantii waxaan u arkay fiideo dhalinyarada aad u anfacay maadaama Soomaali anaga aan nahay platform-ka aan aad u isticmaalana uu yahay waxa weeye Facebook marka maanta waxa weeye talada waa inta saxaabiyaan insha Allah waxa weeye isku daya qaabka loo sameeyo iyo mataqaanaa inta waxay ka baxsanay su'aalaha hadda qabtaana Instagram-kayga waa kala waxa weeye saxaabiyaan Gela Bashiir iyo halkaas waa iga soo follow gareyn karaan Instagram-ka su'aalaha toos dhalinyarada runtii waan ugu jawaabaa oo hadda waxa weeye dhalinyarada aad badan baa waxa maalin su'aalo isdiro halkaas marka saxaab su'aalo waa iga soo weydiin kartaa إن شاء الله ستوصلنا هوان كوزو جهودنا صاحب جال أدب أماسنا هاي اللوبي إن channel subscribe نوصل تذكره لكن نوصل أدب أماسنا